joogtay magaalada Qardho aad garabka iyo gaashaanka siiseen in walba gabadh Soomaaliyeed ay baraha bulshada uga ilmeynaysaa oo waliba uu ka ilmeysiinayo qof bini aadan oo lamid ah ama qalbi ragga waxa la arjaal qawaamuuna cala nisaa ama rag waxay ka yihiin mas'uul dumarka mid kale waxay tawli rijaal calayhina daraja ilaahay rajaalka darajadu ilaahay si quwwadu ilaahay si waxay noqotay inay gabadh Soomaaliyeed maalin walba uu mid ka ilmeysiyo uu ka oohiyo markay aaminto oo qalbigeeda siiso taas waxaan u maleynayaa waa oohin iyo murugo u soo hooyatay baan dhihi karaa walaalaha ragga ah oo ragga Soomaali u soo hooyatay waxaan dhahayaa ragga Soomaaliyeed 90% waxay ka sameeyeen huwa magaca iyo muuqa laakiin waxa lagu kala duwan yahay dabeecadaha ragow haddii ilaalin karin gabadha qalbigeeda waxba beenha u sheegin runta u sheega runtuna uurka xataa wuxuu yiri ma dhalin hooyis xataa waxay tiri wiilkay habeen wanaagsan maalin wanaagsan waqti walba inta wanaagsan soo dhawaada asxaabta qaaliga gacmo furan qalbi furan ku soo dhawaada barta naga daawanaysiin waa bartan YouTube ku leenahay saki midnimo ku soo dhawaaw fadlan walaal hadaan ugu cusubtaa waxaan ku leenahay subscribe-ka noogu cimaamada iyo like iyo share-ka wada socdo hadda hore noo joogteen kumanaa kan ugu xiran aad aheedeen like-ta iyo share-ka insha Allah idinka biidnilaahi kalimadu ilaahay karaal naqdo soo u gaara fiidowga meleer sida adiga u wanaagsan tahay asxaab kale u wanaagsan soo u gaaro oo nagu soo biiraan haddaan nagu soo biirtayni waxaan ku leenahay welcome soo dhawaaw si sharaf leh kala aslaan kala ilaab ka soo go'dani naga wada gudoomaa dadka nagu cusub iyo dadka hore noola joogaba waa mahadsantihiin mar walba waxaan haynaa maanta ka hadlaynaa hablaha Soomaaliyeed dhibaatooyin aad u badan loo geysto ragga Soomaaliyeed maxaa yeelay ma aqaani guurka sanadadan jiro danteeda aan kugu gaaraa lahaaba dana loo soo gala guriga dantiisa doo gaaro waa baxaya hadduu gaari waayo waa baxaya gabar Soomaaliyeed magaalada Qardho ku nooleed wada taqaaniin rag baraha bulshada ku jiro inay soo bandhigeen iyadoo xanuunsan lacag loo aruuriyay lacagta qaar isku daaweysay qaarna ee caro ku furatay ayaa wuxuu dhacay shaygeedii ayaa dhacay ayay leedahay waxyaalo badan aan sheegi karin bal nala daawadaba xalaas waa hordhacay waa ku dheeraaday sidaan qiyaasayo bal nala daawada hadduu la yiraahdo gabartaas iyo cabashadeeda hadduu la yiraahdo barakaatu waxaan halkan ka salaamayaa ummadda islaamka dhammaanteed waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan aad ugu mahadcelinayaa walaalkaysa Kariiti Macade oo iga aqbalay codsigeedii waxaan waa kuma qofka inuu la hadlayo waa walaasha Maxamed Axmed waa gabadhii sanadkii hore joogtay magaalada Qardho aad garabka iyo gaashaanka siiseen in walba gabadh Soomaaliyeed ay baraha bulshada uga ilmeynaysaa oo waliba uu ka ilmeysiinayo qof bini aadan oo lamid ah ama qalbi ragga waxa la arjaal qawaamuuna cala nisaa raggu waxay ka yihiin mas'uul dumarka mid kale waxay tawli rijaal calayhina daraja ilaahay rajaalka darajadu ilaahay si quwwadu ilaahay si waxay noqotay inay gabadh Soomaaliyeed maalin walba uu mid ka ilmeysiyo uu ka oohiyo markay aaminto oo qalbigeeda siiso taas waxaan u maleynayaa waa oohin iyo murugo u soo hooyatay baan dhihi karaa walaalaha ragga ah oo ragga Soomaali u soo hooyatay waxaan dhahayaa ragga Soomaaliyeed 90% waxay ka sameeyeen huwa magaca iyo muuqa laakiin waxa lagu kala duwan yahay dabeecadaha ragow haddii ilaalin karin gabadha qalbigeeda waxba beenha u sheegin runta u sheega runtuna dadka ma nixiso insha Allah waxaan rajeynayaa aan ka rajeynayaa Soomaaliyeed garab istaag iyo duco insha Allah ani maanta xoolo uma baahni laakiin waxaan rabaa maanta garab istaag iyo san xaqeeya ku helaha ilmahan ilaahay waa isii ilaahay inuu badnaan kan ku keenay aniga isagana ilaahay laga saaro adduunka aakhirada iyo afin doono sababta ku taala kuna oolaan doonta intii waxaan ku leeyahay Macade walaalka qaali soo dhawow waqti ay mutay marka uu mar labaad waan kaaga mahadcelinayaa halkaas Kariiti Macade aad kaaga mahadcelinayaa waxa dacwada ka gudbisay waan ka gudbiyay maxay tahay arinta laga dhacay oo aad ka cabanaysaa waxay tahay arinta laga dhacay oo aan ka cabanay oo marka baraha bulshada igu soo ceshay horta wuxuu noqday baraha bulshada saameyntii ugu koobnayd baa ku yeeshay cayib baa ku yeeshay aflagaad baa ku yeeshay hase ahaatee qofna uusan ahayn noqdo
qof walba oo nolosheeda kusoo biira anigu wuu rabaa hantida wuu rabaa laakiin aniga iga carray ama iga fahmay la dhihi karaa waxaa dhacday mid Soomaaliyeed oo walaalkay maalin iyo karo walaalkay balantooda madax hoosta iga cunay aan dareemin waxaan ka dhigtay garab iyo gaashaan iyo naxariis meel baa dhigtay waxaan ku ogaa maadaama aan xanuunsan lacagta ay u shaqeey cawo iifo anigu waxaa dhacday inuu isku qoray hadduu isku wada qoray aan markaan masarnay wuu iska daa waxaas kadib aan isku sinay calaf isku yeelanay la isoo doonay reerkay uu siiyey markuu doonka waxaa gaaray habeenimada kamana isku dhacsan dumarku waad aragto wax in xogaa lama sanaysanaysi laakiin waxaa dhacday inaan meel bandhigooday uu soo joogo anigana aan joogay aan ka qayb galay kadib uu yiri gabar gabdhaha kamid ay tiri waa hebel xaaskiisii saas darteed lix buug bay qaadatay maasha allah waa mahadcelina la-aankii kamida darteed horta gurigeygu uu ku gudumay sakariye aadan timcade wax dacwada wax ii qabtan waa la ahay Soomaali wax ii qabta waa la ahay maanta waxaan ka codsanayaa ummadda Soomaaliyeed maanta inay garab ugu siiyaan cadaalad u heli lahaa maanta waxaan foornada kuwaana inay garab ugu siinin qof walba wuxuu leeyahay shalay adaa siiyey marka maanta waxaan ka codsanayaa marka labaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad walaalaha Soomaaliyeed ee muslimiinta ah iyadoo ay bil Ramadaan tahay in lala raadiyo xaqiiqa waayo qof xaq ka maqan yahay baahay qof waxaan ahay badbaadiyay waxaan qof qalbiga laga jabiyay qalbiga waa muraayada dadkana way dhib badan marka runtii dareen iyo shucuurtooda maanta kama heli karo Sakariye Macade marka waxaan rajeynayaa kollow inaan cadaalad helo in markaas ilaahay rabbi subxaanahu wa tacaala waan aaminay oo khiyaano nagu duugoonayso ilaahayna ka soo ifsaar insha allah waa rajeynaya ninkaan jeclahay inuu ku shanado haa isagoo dhibaatooyin geystay isagoo khiyaano isagoo caayay isagoo aflay isagoo caayay ama imaada ama dhibaato kale ii geystay oo aan ogahay inuu iga tagay oo aan ogahay inuu iga dheeraaday war haddana ilaa xad maanta ninkayga jeclahay waayo waxa weeye ninkayga noloshayda kaan ku aaminay kaan shalay ilaah dartii u aaminay kaan shalay aan wax caddayn aan ka qaadan maanta waan jeclaan ninkayga iyo noloshayda hantidayda inay iisoo noqoto laakiin hantidayda waan waayay ninkaygana waan waayay waxaa noqday qof lagu danyaaray marada haddii la shaqeeyay waa la iska bixiyaa dabcan lagu nadiifaa la xirtaa dabcan anigu waxaa noqday mara la shaqeeyay isagana nadiif u xirtay maanta wuxuu igu taageeraya waxaa weeye muusan arag garab aniga ila dhashay oo garab taagan ama qof garab taagan shalay marka la soo doonay waa la helay waa la doonay oo aabaha la weydiisanay laakiin maanta waxaan dhihi karaa danteeda lahaa waa la gaaray nolol iyo maanta mustaqbal haddii laga leeyahayna ilaa maanta Sakariye kula soo xiriiray ilaa maanta dhibkii waa jiray dib codsigii aqmashin ma jirto waxaa dhacday Sakariye Macade saddex habeen waxay ka soo wareegtay toorreys oo beertaas oo baan ku kulanay aniga iyo sayidii aniga markaa raadinay wado wanaagsan oo wanaag ah ku heli karo madaxa iyo majaha ka tuxaabo malaafiga saama yaa la noqon وديرين ولا خيانة بعد كيس لكن إلى هذا طالعنا يقول من كيسن بقول من كيسن مرة بقول شعران كيلين وشيء لكن يصير له واحد شحاد ده سمع حق فلسفات كان برها بشيء كده فلا ده قبل حتى قوس كيس ويشوف كان دي كرامات كده كلام marka waxaan leeyahay intaasaan ku soo gudbinaya Soomaaliya waxaan ka codsanayaa ama walaal muslimiinta shalay ay gartaan inay garab istaagaan san xaqayga waxaan ka codsanayaa madaxda Puntland iyo shacabkeeda inay garab ugu siiyaan xaqayga oo leeyahay inta maanta waxaan qof u leh wuu ka xaqayga ma dhalay wuu ka waxay tiri milkayga wax uu leeyahay aniga uu keenay la ku baymay ilaahay maanta inuu yeelay alxamdulillah أبو سلمان لا يقدر أبوه إلا رب العالمين لكن أشهد يا قلب استاذنا إن الناس كل بدي حوالي شو اللي كان بيلش أو شيء ما أهل حوالي أنا عشان أنا صار شقيستي وجي إيه صار أن نختار كآلي أنا جنا عشان شقيستي جنا عسكري ما نفعش نقول ما قول عليان وما حسيتين قال كذا بقول وحن أدري منها أن ما قول ولا لبعض رياش كلا سكريا سكريت معدية على آلي وشرع الشيء وأكتر شيء باهي ما أنتنا شعلنا أكتر باهيان ما أنتنا شعل إن نقرب ملايا داشان وهم غير برهم بالشرع وسوشيال ميديا وإحنا قطعين عاوية مساكينة مركز إن شاء الله حنقول لنا هذا بدي عاوية إلا هريتي عاوية أنا من كاسمي لك الصراحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
sidaad daawateen waa gabartaas dhibanaha ah uurkii lagu inkiray. ilaahay ka sokow aniga nafteeda ugu mahad celinayaa Sakariya Timcadde iyo Cali Aadan labadiinaba waa in salaamayaa. waa dad bulshada mar walba u adeego, waa dad bulshada wax badan u soo qabtay, xumaan badanne dadka tusay oo dhahda waxaan waa xun yihiin ha laga leexdo dhinacaasan ha la aado. muuqaalkan haddaa aragtiin aadaan in salaamayaa سلام بقول ثانية عفرت إن شاء الله بإذن الله الكريم. وحان لنا جبرتاس مساكين تا وعصنا يسو إني حقي ذي حقوق ذي شو لو إنكري ولي أورك إنك أوقاد سبحان الله. إلى بان كما قلنا وحكم وقت ما يشاس مركورة بجوركا إن إذا لو قيامنا يصير شيء يسو واللي يقدم جاري تري مرة وسق أيا نقضي مرة نظيفة أيا لاجا دورتي وكحوم هاي آدي آدم وكحوم هاي وحيا لها قاركيس معايا لي قبل هنا وقبل شرف بدن وقبل قالية وقبل قيمة بدن هذا نه ولو آمني حق لو آمني آوي ما كسينو ما شاقيسي marka cadaalada ay codsanaysa ilaa baa horta cadaalad hayo laakiin inta ka caawi karto inay cadaalad hesho wax dheef u baahniyo tir maanta cadaalad ayaan rabaa shal waa aaminay wax kala ma qaadanin kullay qofka ku aamintay qofka dhacda oo qiyaanta ayaa ka sii daran kullay laakiin hadda ka bacdo waxaan leenahay yaa la aaminina ragga Soomaaliyeed ha aaminina dumarka ragga Soomaaliyeed ka qaata qoraal ka ku qabo sidoo doona ha ahaado ha laga qaato cadeen maxaa yeelay iiga meesha isgeeyeen ha mu'adan aaminu la taaminu wadanta yalla aaminna la ya ana aaminina maxaa yeelay waxaan ugu aamini jirtay anaga ka tagnay insha Allah inta video lamida aan ku kulmayno waxaan leenahay asxaabta subscribe-ka like-ta iyo share-ka asxaabta nagu cimaamada insha Allah biidnillahi kariim. انت فيديو لمده انكو كل مينو سيداسيو مع السلامه ان شاء الله عافمد ايان رجينا ان شاء الله باذن الله الكريم. باي باي.